سودو هذا صاحب يال واد ودا تغانان ويلكاس يقصليا وسيد علي oo dabcan ninka gubay xaaskiisa isla markaana gubashadaasi ay u dhimatay aaba Sheekh Cabdilcasiis oo dabcan sida wajigiisa idin kaga muuqato aaba Soomaaliyeed isla markaana wali la murugeysan gabadhiisa oo aan wali la aasin oo fridge ku jirto in ka badan 20 maalin ayaa dabcan waxa uu leeyahay aawi cadaaladii daawade qayb ayaad ka noqon kartaa raadinta cadaaladda walaashan Luul Sheekh Cabdilcasiis hadii muuqaalkan aad meel sare gaarsiiso kiiska Sayid Cali baraha bulshada oo dhan aad iyo aad ayuu u qabsaday oo Soomaali oo idil ayaa hadal haysa balse maxay tahay sababta isagoo maxkamadii jooga uu u qoslayo taas ayaa su'aalaha isweydiinta mudan muuqaalkaas aan iminka idin soo gudbiyay waa muuqaal laga qariyay dhammaan warbaahinta iyo sidoo kale dadweynaha waad arkaysaan waa eedeysana Sayid Cali oo wajigiisa ay farxadi ka muuqato waxa uu haystaa laba abukaate oo isla markaana u doodaya oo leh Sayid Cali wax dambi ah oo uu galay ma jirto Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay dadka reer Muqdisho ayaa waxay hadal hayeen ama afkooda mar walba ka soo baxayay cadaalad waxaan ogahay cadaalad inuu Allah subxaanahu wa ta'ala oo kaliya inoo hayo marka koowaad daawade waxaan ka codsanayaa oo waliba si xushmad ay ku jirto muuqaalkan inaad meel sare gaarsiiso isla markaana aad leekareyso Sayid Cali waad aragtaan waa ninkii dabcan isaga oo farxaya maxkamadda soo hor fadhiistay dadka qaarkii ayaa waxay isweydiinayaan jarnaal sheegow oo ka dhashay beesha Jararweyne isla markaana lagu eedeeyay inuu dil geystay kadib markii ciidankii Soomaaliyeed ay soo weerareen gurigiisa ayaa mar qura la arkay inta maxkamad la soo hor istaajiyay isla markii xukun degdeg ah lagu fuliyay yaa hortaagan kiiska Sayid Cali waa su'aalaha inta badan isweydiinta mudan yaa ka dambeeya Sayid Cali oo dabcan shafka u garaacanaya maxay tahay gal dacwadeedka markii labaad aan wali wax xukun ah lagu ridin mar saddexaad ayaa loo balansan yahay in la furo gal dacwadeedka Sayid Cali dadka deegaanka iyo waliba marxaatiyaasha badankoodba waxay ku eedeeyeen in uu isaga dilay xaaskiisa isla markaana uu gubay marxaatiyaal badan ayaa la keenay maxkamadda iyagoo dhammaantood cadeeyay kaba soo tag marxaatiyaasha isaga ayaaba afkiisa ku cadeynaya in gurigaasi uu gubay oo uu soo qaatay baasiin isla markaana oo taraqa ku shiday maxay tahay marxaatiyaasha la raadinayo maxay tahay sababta ay maxkamadda xukunkaasi dabcan u ridin laadahay qoyska Luul Sheekh Cabdilcasiis Allah u naxariistee iyagu maxay naawilayaan maxayse dabcan ay tahay sababta ay wadnaha farta ugu hayaan warar hoose aan helayna ayaa waxay inoo sheegayaan in qoyska Luul Sheekh Cabdilcasiis aaba Sheekh Cabdilcasiis loo balan qaaday lacag badan balse uu diiday inuu lacagahaasi qaato waxay leeyihiin haddii aad diiday lacagahaasi aan ku balan qaadnay lacag la'aanna waa ay kugu dhacaysaa anagana falkan waxaan leenahay dambiga ah ma ayna geysan ee halkee ayaad ka raadsanaysaa cadaalad aaba Sheekh Cabdilcasiis oo dabcan sida wajigiisa idin kaga muuqato aaba Soomaaliyeed isla markaana wali la murugeysan gabadhiisa oo aan wali la aasin oo fridge ku jirto in ka badan 20 maalin ayaa dabcan waxa uu leeyahay aawi cadaaladii daawade qayb ayaad ka noqon kartaa raadinta cadaaladda walaashan Luul Sheekh Cabdilcasiis hadii muuqaalkan aad meel sare gaarsiiso aan isla daawano Sayid Cali oo dabcan ku qoslaya mid ka mid ah marxaatiyaashii la keenay waxaad sheegtay xilliga Sayid Cali ku maraayo oo ku soo maraayo 4 saac bar inay qiyaasti okay
caag qof wado 4 saac iyo bar ma la arki karaa waxa ku jiro inkastoo su'aasha hore lagu weydiiyey caag cadaan saa'id waay haye iyo ku jiro alfaam kara waa tahay waad aragteen sayid cali wajigiisa farxadda ka muuqata waxa uu og yahay in laga dambeeyo oo kiiskan aan lagu fulinaynin aaway cadaaladii goormee ayay dadka Soomaaliyeed oo hadalka ugu badan ee afkooda ka soo baxa uu noqdo cadaalad ay cadaalad heli doonaan allow adigaan ka barina cadaalad allow adigaan ka barina cadaalad daawade muuqaalkan intaad qabataan meel sare gaarsiiya inteenu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo amaana Allah ma tahay waalid ku nool qurbaha mashquulka faraha badan ee qurbaha yaala adiga iyo ubadkaaga idinka mashquuliyay barashada quraanka kariimka mar walba walwal ma kugu haya xadiiskii nabigeena nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee ahaa alqur'aanu xujjatun laka aw alayka maalinta qiyaame quraanka adiga ayuu ku doodayaa ama ka doodayaa haddaba macadka daaru raxma qur'aan online waa xalka mushkiladaada waana mid ka mid ah dugsiyada faca weyn isla markaana ay ka faa'iideysteen waalidiin badan iyo carruurta ku nool qurbaha